ciidanka booliska ayaan guud ahaan u mahadnaqayaa gaar ahaanna waxaan u mahadnaqayaa qaybta daraagiska noo qaabilsan taliyahooda iyo dhalinyarada u jajaban ee ciidanka booliska ee ka shaqeysa 24 saac daraagiska ee waxaan hor yaala soo qabatay waxaan doonayaa inaan arrin yar oo maaragtay uguba inaan idin la socodsiiyo waxaan la socodsiinayaa maanta ummad marka la doonayo qayimkooda in la dilo ama diintooda la dilo ama damiirkooda la dilo marka la doonayo ummad in la baabiyo damiirka laga dilaa xoog laguma baabiin karo taas waxay ka dhigan tahay maanta dadka reer Soomaaliland waxa ay muuqata in la inagu soo duulay oo la doonayo in damiirkeena la baabiyo tuulo kasta oo wadankeena kamid ah iyo magaalo kasta oo wadankeena kamid ah waxa la soo geliyaa xashiishada iyo khamriga ayaa lagu talagalay in la soo geliyo boolisku wuu la dagaalama saacad walba uu qabtaa laakiin waxa sidii loo baabiyo oo aanu meesha dad daciifa u noqono nasiib wanaag tactiga kolba la qaadayo waanu la dagaalami jiray boolisku waanu ogaa dadweynuhuna wuu naga caawin jiray waxa la yaab leh jawaanada idin hor yaala ee qaadku ku jiro maaha qaad baabuurtii qaadkii loogu talagalay ayaa lagu soo guray khamrigii dushiina jaad baa laga soo xidhay boolisku wuu ogaaday waa la soo qabtay hortiina lagu jeexi waana la arki doonaa waa waxyaalo aad iyo aad la yaab leh markii maalinba nooca loola dagaalamaha nooc kale cusub ay la soo baxaan taas waxay cadeynaysaa inay istiraatiijiyad dheer tahay waxaan u sheegaynaa waxa kale la yaab leh lacagtaas waa $3,000 $3,000 weeye oo doolarka Mareykanka ah waxa la qabtay kaas waa gaar jawaanada ku jira ee qaadka dusha laga soo xidhay oo xalay baa la qabtay kartoonka gaarka ah ee halka yaala waxa ku jira 18 mid oo kii quraarada waaweynaa ku jira ciidanka booliska shalay qabtay markii ninkii lagu qabtay gabadhii lahayd $3,000 bay u soo dhiibtay laba nin oo kale oo labadii inanay qabtay ama afartii inanay qabtay ay ku tiri lacagtaasiya oo gaadhigaya inaan ka furfura xataa waxay gaarsiisay hadii waa gabadha khamriga oo dhan inta badan keenta waanu ogni xataa lacagta ku qanci waayaan gaadhiga in lagu wareejiyo nootaay loo saxaabay ay soo dhiibtay inamadii nasiib wanaag askarti lacagtii intay ka qaadeen ayay labadii inan qabteen iyagoo labadii inan ee lacagta u keenay ay iyadu soo dhiibtay ee ninkan laga furfuray khamriga sita iyo ninkii khamriga sitay iyo khamrigii oo kaasa iyo gaadhigii iyagoo wada ayay noo keeneen inamada askarta ee lacagta diiday mid baa igu dhaartay inaanu maalintii qaday shantii galabnimo heedo $3,000 waa la siiyay taas waxay cadeynaysaa booliska qayimkiisa inuu isna bedeli doono damiirna leeyahay dalkoodana ay u dhaarsiiyeen ku tala galeen iyagoo gaajoonaya inay wadankooda ka suuliyaan khabaa'ifka waxyaalaha loo xil saariyay shaqadoodana ay u dhaarsiiyeen inay qabtaan aad iyo aad baan u amaanaya waanu abaal marinay waananu abaal marin doonaa halkaasi ay iyaguna ku arooreen marka waa laba waxaan u sheegaynaa nimanka khamriga keena iyo nimanka daraagiska keena hadday qaad ma futa ay geliyaan iyo hadday iyagu isku soo dhex guraan ilaahay idankii naga baxsan maayaan boolisku wuxuu u tababaray u idmay talaabo kastay qaadaan inuu ka horeeyo maaragtay qabanna doono qolada qaadwalayaasha ana waxaan u sheegaynaa inta jawaanada lagu soo guraa leeyahay waa qaade cashuura markaasuu kala beer soo maray waxa kasta buu soo maray qaadahan baa loo cashuura inta la miisaamo khamri baana ka buuxa waxaan u sheegaynaa qaadwalayaasha kana socon mayso una dul qaadan mayno maaragtay qaranka yaga in lagu khalkhaliyo wax kale loo haysto waanu ogaanay kana socon mayso halka lagu soo qariyo hadday in wanaagsan ku jirto oo iyaga wuxooda aan la soo dhex gelin ha iska qabtaa way sugyiin inay noo soo sheegaan bay hayd meel kastay mariyaana waanu ognahay waananu qaban doonaa ceebna way ku tahay maanta qaadwal oo dhan bay ceeb ku tahay horena waanu qabanay imikana waanu qaban doonaa waxa kale oo u sheegaynaa kuwa lacagta ciidanka iyaga siinaya waxay doonaan ha noqdaan kuwa kiisaska caadiga lagu qabtaa lacag askarta ku daya maaha markii koobaad wallahi inaan ahayn 2 iyo 3 iyo 4 buu soo martay lacag $1 oo far badan askarta loo keenay keenan dadkan kiisaska intay dambi galaan lacagta ku deeya ayar sheekadaas way dhamaatay
dadkanu waxay doonayaan dhalinyaro weeye mustaqbalkooda iyo mustaqbalka ummadooda ka fikirayaan dembi bay ku tahay waanu u digaynaa kiiskiina uu ku saddex laamayaa saaka maxkamadaanu geynay nimankii lacagtaa keenay horta maxkamadda horteeda qiraal kaga sameeyeen inay lacagtaa inamada siiyeen $3,000 ay kaga furfurayeen 18 midho khamriga iyadoo ujeedadu ay tahay istiraatiijiyadda weyn ee daba socotay inaan ogaan waanu u digaynaa ha ka waantoobaan wax xun noocaas foolxumada waanaanu qaban doonaa mana ka soconayso marka koow waxaanu dadweynaha u sheegaynaa waa laynagu soo duulay waa istiraatiijiyad dheer waa aragtaan maanta waynu ognahay guri kasta oo miye tuulo kasta khamriga iyo xashada inay taalo fadhiga ha laga kaco jiifka ha laga kaco mustaqbalka dadka aynu wada badbaadino qof kasta oo soo sheeg khamriga iyo xashiishada iyo meesha uu yaalo aad baanu dadweynaha isugu xidhannahay aad bay noola shaqeeyaan arrin adag runtii weeye arrin xataa dawladdu keligeed aanay qaban karin weeye waa arrin u baahan istiraatiiji kale inaynu nation ahaan uga wada dagaalanno waa inaynu ka wada hor tagnaa qof walooba halkaaga ku suuli waa arrin aad iyo aad u xun soo sheeg boolisku meel kasta wuu joogaa u soo sheeg waxaan ugu dambayn aad iyo aad u ammaanayaa inamada yareer ee askarta ah ee hadday doonaan aan qadayn ee lacagta intaa leg la siiyey ee diiday ee noo keenay ayaan aad iyo aad u ammaanaya booliskana aad iyo aad baan u ammaanaya waxaan ku ururinayaa cid kasta oo noocu doonaha ahaado qofku doonaha ahaado hantidu doonaha lahaado tallaabadu doonaha sameeyo insha Allah waanu qabanina nagana baxsan maaya dadweynaha waxaan mar labaad ka codsanayaa inay booliska la shaqeeyaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.